waxa laga yaabaa inaad isweydiisaan oo khaniisku miyuu toobad keeni karaaba in baa maalin dhaweyd nin ingiriiska ka yimid oo maxaabiista muslimiinta ee ingiriiska xabsi kamida ayuu qaybta diinta islaamka u xilsaaran yahay gaaladan taatad xabsiyadeeda masaajid bay ka dhisaan gudaha meelana waxay u dhisaan kaniisadiina way u dhisaan yahuudana macaabid bay u sameeyaan qolo walba marka nin sheekh ay u sameeyaan mushahar ku qaata oo tujiya oo diinta u sheega wadaadkii marka xabsiyada mid kamida diinta u sheegay maxaabiista baa meeshan ugu yimid meel dhow marka wuxuu igu yiri sheekhow anoo tukanay meeshan waxa lagu soo xidhaa cid walba anoo tukanaya waxa igu soo xidhay buu nin oo khaniisa marka salaadii baa waswaasiga galay war khaniiskan kugu soo xidhay amu salaada ka akhriba wuxuu weydiinaya marka sheekhu horta khaniis salaad miyay ka asaxda oo muslimiin noqon kara diinta miyuu ku soo noqon kara mudda marka waxaan u sharxahay war khaniisnimadu diinta loogama baxo waa dambi foolxun oo aad u foolxun laakiin ma aha khaniisku inuu diinta ka baxay waa muslim haddana dambi culus ku jira sooma sidaas daradeed hadduu tukado salaadiisu waa salaad caadi ah hadduu soomo soonkiisu waa soon caadi ah malaha waa la yaabantii waayaha wayba inuu wadataa Allah inaga dhigo marka wax way maaha kufri maaha waa dunuubta waaweyn ee aadka u xulusay fawxishuna fawaaxishta laakiin wuu toobad keeni toobadiisana haday saadiqato shuruudeedii wadato Ilaahay waa ka aqbalaya wuu toobad keeni kara hadii la xadana xadda la xaday muxuu ahay dilka ah kafaaray u too dambi dhaaf Ilaahay uga dhigaya marka waa un ruux dambi ku jira dambi weyn ku jira cibaadaadkiisuna waa asaxayaan haday shuruudii oofsadaan nabiga sallallahu alayhi wasallam muxuu ahay dadkii u yimid toobad keenay gabadhii zinaysatay uurka lahayd iyo maacis markuu toobad keenay oo nabiga u yimid xadka iyaga oo fiiri iyo nabigu in badan wuxuu isku dayay inay iska tagaan gabadhana waa kii ku yiri ka iska tago markaad soo umusho imo markay soo umusho ilmihii umushay bay hadana u timid idaahiri markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo nuuji hadana way tagto way soo nuujisay oo naaski markuu ka go'ay iyo xogaa kibisa intay gacanta u soo saartay iyadoo waday keentay suulkale waa ka naaskaygu ka go'ay uga kaaftoomay xadkayga oof maxaa laga qaadanaya marka haday iska tagi lahayd mid baa ka daba tagi lahayd ila lama xidhin lama soo qabteen maacisna markuu zinada galay oo la kari waay oo nabigu ku sallallahu alayhi wasallam waraamaadu yarata taabatay maya waraamaadu xogaa yaro farsamayso meel weyn aadan gaadhinba maya waxba iima laableen nabigu markii dambe sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kaxeeyo halka geeyo dhax ku dila wala qabtay dhagixii markii lagu bilaabay ayuu marka adkaysan waayay markaasuu cararay way ka daba gadhigeen marka way daba dhigteen dhagixii bay la daareen markaasuu wuxuu war nabiga igu celiyo marna wuxuu leeyahay war iga daba hadhina buu leeyahay nabigu markii warkii loo sheegay wuxuu ku yiri maxaad u soo celin weydeen wuu toobad keeni lahaa waxa laga fahmayaa marka toobadu hadii ruuxu isagu iskeeno isagoo taa'ib ah xadka in laga oofiyo laazim ah wal iska deeyna laakiin hadduu ku adkaysto sida maacis iyo gabadha iyo ay yiraahdaan illaa hana la daahiriyo wala daahirina marka xadkii baa laga oofinaya maxaa ka duwan baa niri waxa ka duwan xadku haday marxaati ku sugnaato oo san marka qiraal iyo iskeenid ay ahayn lagu marxaati kaco marka hadii la soo qabto lama sii deyn karo lama cafin karayo xaakimkuna xaq uma laha iyo dawladdu xad saa u sugnaatay inay cafida xaq uma laha